marwooyin iyo mudanayaal tusan oo habboon ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee qisadii brofesor yaxya ajuuma iyo digtoraysa amiiliya. waa boga ka mida xaashiyihii buugga ee xasuus qorka ee amiiliya oo waa hilinkii habboonaa ee diinta islaamka ay ku hiigsatay iyo wadaaggii jacayl ee dhex maray iyada iyo yaxya ajuuma. waa turjumaaddii cabdishakuur cali nuur iyo soo jeedintii khadar maxamed xaashi. qaybtii koowaad ee qisadu ha inoo bilaabato. amiiliya waxay ka timi magaalada southampton. waxay ka shaqaynaysay bank of england xaruntiisa london. xilliga amiiliya ay ka shaqaynaysay bangiga waa muddo iminka laga joogo 70 sano iyo in ka badan. waxay dhimatay 2007 iyadiiyo 90 jir ah, waxaana buuggii xasuus qorkeeda daabacay wiilkeedii curadka ahaa ee abuukar. wuxuu qoray buugguu u bixiyey sidaan u imi oo ula jeeday siduu u dhashay ama labadii waalid ee dhalay siday isu heleen ama ay isu guursadeen. qoraalka amiiliya waa wada sheekooyin si la yaab leh u dhigan, waxaase ila xiisa badnaa mid ciwaankiisu ahaa isbeddelkii weynaa. waxay tidhi yaraantii waxaan dhigtay iskuul gaar ah oo wax lagu baro carruuraha dabaqadda sare, waxaanan ka baxay jaamacadda ugu waxbarashada fiican UK ama dunidaba. waxaan bare ka noqday isla jaamacadda, mar dambena waxaan ka shaqo bilaabay xarun ka mid ah meelaha laga maamulo bank of england. dadkan wax la bartay iyo kuwaan la shaqo galayba waxay u badnaayeen dad British ah, weliba kuwooda ladan maadaama aabbahay ka mid ahaa maalqabeennada caanka. waxaan necbaa ajnabiga iyo la macaamilkoodaba iyo dhexgalkoodaba. waxaan necbaa araggooda, mana ogi si nacaybkaasi uu igu tallaalmay oo laabteeda uu ku galay. wayse dhici kartaa bay tidhi in hab dhaqana umuurtaasi ay igu timi ama yaraantiiba aan ku ababay. kollay waan xasuustaa oo ayayda iyo awowahayba aad ayay u nacbaayeen ajnabiga, laakiin aabbahay wuu ka yar hedwanaa sidaas oo waxa uu ahaa ganacsade ka taajiray afrikada ingiriisku gumaysan jiray. qaaradda afrika weligay ma tegin, waayo waxay cabsi gelinayeen muuqaallada dadka halkaa ku nool. waxay ila ahayd meel gaajada iyo nolol xumada astaan u ah, taas oo ay sabab u tahay garashada dadka dhulka leh oo aan horukaca yeelan. may ahayn muuqaallada aragga ah oo keliya waxaan ka fasirtay, ee waxaan akhriyey qoraallo badan oo umuurtaa xoojinaya. aad baan ugu xiise qabay aragtida noolaha duurjoogta ah oo kala duwan, iyo dhulka qoraxda leh ee carrasanka iyo kaymaha cagaaran ee jiqda ah ee qaaraddaasi caanka ay ku tahay. waxaanse uga baaqday oo iskaga daayay inaan dalxiis ku tago halkaa dadka dhulkaa ku nool oo muuqaalkoodii cabsi geliyey. waan tegi karayay halkaa, waayo intooda badanba waxaa maamulayay ama gacantaba ku hayay waddammada reer yurub. anigoo baankii ka shaqaynaya, waxaa bangigii ka shaqo bilaabay wiil dhallinyaro ah oo u dhashay dalka iminka loo yaqaano jamhuuriyadda gambiya. magaciisu wuxuu ahaa master yaxya ajuuma. shaqadiisuna waxay ahayd inuu waraaqaha shaqada u kala gudbiyo qaybaha dhismaha ee shaqadu ay ka socoto. waxa uu shaqayn jiray saacado yar, waayo waxa uu ahaa arday jaamacadda dhigta. anigu ma jeclaysan inankaas oo araggiisa ayaabay dhibi jiray, waanan huruufi jiray jeer walba oo dhinacayga soo abbaaro. mar kastaba wuxuu odhan jiray erayo akhlaaq huwan oo ixtiraam leh, sida mahadsanid, iga raali noqo iyo fadlan iyo wixii la mid ah. wuxuu ahaa inaan aad u deggan oo bisayl garasho iyo degganaan u dhashay. inkastoo aan hadalkiisa ka dareemayay wacnaan iyo wanaagsanaan badan, ha yeeshee wanaaggaashe wejigiisa kamuu turjumayn, oo waxaan moodayay kolka aan wejigiisa eegayaba inuu ii cadhaysan yahay ama uu ila cadaawo iigu eegayo. mase ahayn cadho, ee waxay ahayd abuurtiisa uusan waxba ka beddeli karin ee wejigiisa ku dheehan, taasoo mar dambe aan ogaaday. waa runteed oo waxaa jira qaar ka mida aadamaha oo wejigoodu uu qafilan yahay, qalbigooduse yahay mid furan. waxay tidhi waxaan la yaabi jiray shaqaalaha odayaasha ah inay aad u jeclaayeen wiilka oo u qadirin jireen, waayo waxay ahaayeen waayo arag soo arkay bulshooyin kala duwan oo dunidan ku dhaqan. maalin baan xanuunsaday bay tidhi oo waxaan galay cisbitaalka
ajuumana waxa uu noqday qofkii ugu horreeyey oo shaqaalaha ka mid ah oo booqasho iigu yimaada cisbitaalka. mar keliyana ma ahayne jeer walba waa uu i imaan jiray. maalmihii hore waan isyarahee dhaafin jiray, kolkii dambese si wanaagsan ayaan u qaabilay. shaqaalihii cisbitaalku waa ay la yaabeen ninkani soo booqanaya oo aysan ka filan karin xidhiidh iyo cilaaqaad inuuna dhex mari karo. waxaanse u sheegi jiray inaan meel ka wada shaqayno oo keliya oo wax kale aysan jirin. kolkan cisbitaalka ka soo baxay sidii hore waan ka soo dhoweeyey. wuxuu ku dadaalay inuu aad ii xidhiidhiyo, taasina keligay kumaba koobnayna shaqaalaha oo dhan ayuuba saaxiib la ahaa. anna waxaan ku soo siqay inaan asxaabtiisa badan aan ka mid ahaado. maalin kale ayaan waxaan isku dhacnay saaxiibkaygii hore kadib markii uu xidhiidh la sameeyey gabadh siyaasadda ay ku wada jireen. xilligaas waxaan galay welwel iyo warbahaar badan ilaa aan kuba sigtay inaan naftayda dilo. maalin baan kaabadda bangiga hortiisa markaan gaadhiga raacayay waxaan kaga tegey boorsadaydii gacanta oo alaab muhiim iigu jirtay. kolkaan gurigii tegey ayaan xasuustay, laakiin rajo weyn kama qabin haddii aan kaabaddii dib ugu laabto inaan boorsadii ka soo heli karo. anoo samray kase werwersan ayaa albaabka laygu soo garaacay. waxaan ka egay daloolka yaree albaabka, mise waa ajuuma. aad baan u naxay oo waxaan ka argagaxay cidda gurigayga bartay. waxaan u malaynayaa inuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee madow ee albaabkayga soo garaaca. waxaan ka yaxyaxay in xaafaduhu igu arkaan. waan sii eegay mise wuxuu gacanta ku wadaa boorsadii iga luntay. waan ka furay albaabkii, mase wada furine qayb ayaan furay. wuu ii salaamay wuxuuna ii dhiibay boorsadii. waxaan ku idhi mahadsanid, dabadeedna albaabkii ayaan xoog u xidhay. waxaan ka sii khaawisay daloolka, mise wuu sii baxayaa. shakhsiyan iyo damiir ahaan ayaan gunnimo dareemay. waxaan furay albaabkii oo waan u yeedhay, wuuse iga diiday. wuxuu igu yidhi inaan boorsadaada kuu keeno ayuu muhiimaddu ahayd, waanan kuu keenay ee nabadgeliyo. waan ka raaligeliyey wixii aan sameeyey, wuxuuna igu yidhi ha warwarin. waxaan eegay dariskii, mise kulligoodba daaqadaha ayay iga soo eegayaan. isla markii uu baxayba waxaa ii yimi dadka deriska ah oo ii weyddiiyey ninku wuxuu ahaa. waxaan u sheegay inuu yahay nin aan meel ka wada shaqayno, alaab aan soo ilaawana iga daba keenay. cabbaar kadibna waxaa igu soo garaacay albaabka booliiskii. qaar deriska ka mid ah ayaa u sheegay in qof aan la aqooni xaafadda uu soo galay. booliiskuse warkii aan u sheegay way ku qanceen. subaxii markii aan shaqada tegey ayaan weyddiiyey sida uu ciwaankayga gurigayga ku soo helay. waxa uu ii sheegay warqadaan fasaxa ku dalbaday oo booskayga shaqada taalla inuu markuu alaabta helay uu ka soo qortay. mar kale ayaan aad ugu mahad celiyey. maalintaa kadibna si weyn ayaan ugu soo dhowaaday. maalin baa aniga oo bireeg yar shaqada ka galay oo meel gooniya keligay fadhiya oo ka warwarsan saaxiibkii aan kala tagnay ayaa inta uu ii fahmay in waxsi iga yihiin hadalla kaftan iyo maad iskugu jira uu ugu tala galay inaan fakarka ku ilaawo igu bilaabay. waan ilaaway warwarkii oo waan baqoslay. cabbaar baa sheekaysananay, aadna waan uga helay shakhsiyaddiisa, garashadiisa, aqoontiisa iyo tixgelintiisaba. weligay ismaan lahayn inuu yahay qofka. mar kale ayaan sidaas oo kale kulannay. waxaan gaadhay meesha qadada uu ku cunayo inaan cuntada la imaaddo oo la fadhiisto. waxaan kaloo gaadhay inaan dhibsado maalmaha uu shaqada ka maqan yahay. wuxuu maskaxdayda ka maydhay aragtidii aan ka qabay dadka madow. ma ahayn nin degdeg badan, inkastoo aan uga warramay inaan saaxiibkii hore kala tagnay. wax shukaansiya ilama soo gelin oo waanba ka boodi lahaa haddaan sidaa ka dareemi lahaa. wuxuu ii odhan jiray ninkaas aad isdabeecad barateen, wax kuu dhaamo ma lehe la heshii. kolka uu fahmo inaan ka soo taaganahay wuxuu ii odhan jiray waxba ugama baahnid. gabadh wax baratay oo shaqo fiican haysata oo hanti leh oo qurux badan ayaa tahay. inay wax ka jireen hadalkaas way dhici kartay, waanse iska weedho dadka ah niyadda loogu dejiyo
marka duruufahan oo kale ay haystaan. ajuuma waxa uu ii noqday qof aan ka weheshado warwarkii ii haystay, waanan ku nafisi jiray oo uga sheekayn jiray walaaca iyo walbahaarka aan qabo. wuxuuna igu soo beegmay wakhti xasaasi ah. wuxuu iga soo gudbiyey duruufo adag, anigoon aan is ogayn ayaan basirtaydii oo dhan uga warrami jiray. waxaan damcay inaan lacag ku caawiyo, wuuse iga diiday. waxaan ku sheekaysan jirnay shaqada iyo goobaha kafeteriyada. xiise aad iyo aad u weyn ayaan u qabay mar kasta la kulankiisa. mar dambe waxaan dareemay inaan nolol la wadaagi karo, waanse cabsanayay waayo dadkayagu marnaba taas raalli kama ahaadeen. isaguna iima muujin dareen iyo damac doonis ku salaysan. xaalkayagu wuxuu sidaas ahaadaba, marar ayaan ku fekeray inaan isaga ku qanacsanahay u soo bandhigo. haddana waxay la ahaatay bal inaan isaga dhankiisa ka sugo, ugu yaraan inaan ka dareemo ifafaalo arrintaa la xidhiidha, iyo inaan dhowro inta uu waxbarashada oo muhiimad weyn u lahayd uu dhammaysanayo. ajuuma jaamacaddii waa dhammaystay. si wanaagsan oo macallimiinta iyo ardayduba jeclaysteen ayuu uga baxay. maadaama uu digriigii labaad qaatay waxa uu noqday kaaliye macallin. sidoo kalena isla jaamacaddii ayaa siisay fursad kale oo takhasus uu ku samayn karo. markaa waxa uu ka soo wareegay shaqadii bangiga, wuxuuna u soo wareegay jaamacadda. waxay tiraanna shaqadii bangiga waan ka tegey oo waxaan dalbaday isla jaamacadda inaan macallinka noqdo. macallinnimadu waxay ii ahayd shaqadii bangiga iiga horraysay. markii aan siifiigii u gudbiyey jaamacaddu way aqbaleen, waxaanan ka mid noqday kooxdii macallimiinta ajuuma. waxaa cajiib noqotay inaan isku takhasus noqonnay. 3 sano kadibna waxa uu noqday macallin buuxa, isaga oo bare u noqday dad siyaasadda iyo hoggaanka UK meel sare ka gaadhay. waxaan wada noqonnay macallimiin, si wacanna waannu isu sii barannay. waxaan aad uga caawiyey cilmi baadhis iyo daraasad uu samaynayay sannadihii dambe ee waxbarashadiisa. waxaan kaloo ka saaciiday qoraalkiisii takhasuska. ajuuma marnaba iima muujin waxaan ahayn aqoontaa guud iyo abaallo uu iga hayay caawinaaddii aan siiyey. inkastoo aan si dadban damacayga ugu muujiyey, haddana waxay ila ahayd inuu isdhaafinayo. waxaa suurtagal ah dhaqanka oo aan ku kala duwannahay inuusan fahmi karin foolkayga farriimaha ku yaallay. kolkaa ayaan go'aansaday inaan si badheedh ah ugu sheego damacayga dhabta ah ee aan ka leeyahay. qaybtii koowaad ee qisadii brofesor yaxya ajuuma iyo digtoraysa amiiliya maanta intaa